الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، بشي رمضان مانتا ومالتي لباد مالتي لباد وهي بشي خيراتك، بشي بركاتك، بشي نفحاتك، بشي رحماتك، بشي قرآنك، بشي إنفاقك، بشي قيامك بالمكتر هبيك خير بدن من 1000 شهر. بشي مالتي لباد وهي ولا ليال dadkii hore ee salafka soonkoodii sida uu ahaa iyo soonkeedna maanta sida uu yahay haddaad isbarbar dhigto waxaa kuu soo baxaya arrin la yaab leh. ma labada jiil baa kala duwan, laa shaka fi dalik, laakiin haddana waxaa kuu soo baxaya in waxaa la doonayey cidda la raali gelinayo allah subxaanahu wa tacaala ah, jannada la doonayo iyo waxa la shinsanayo ama la quudaraynayo inay isku mid yihiin. nin walba wuxuu doonayaa inuu liibaano. jannadu waa un jannadii, rabbina waa un rabbi, laakiin waxaa weeye himmada iyo hanka ayaa kala duwan. cibaad allah, dadkii hore siday u soomi jireen arrin la yaab la weeye. waxaa la sheegaa inay dhihi jireen dadkii hore soonka waxaa ugu fudud, soon la soomo waxaa ugu fudud qofka inuu ka tago cuntada iyo cabitaanka iyo nikaaxa iyo wasaa'il almuhtalaat. jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu wa ardaah wuxuu odhan jiray, haddii aad soomto maqalkaadu ha soomo, araggaadu ha soomo, carabkaadu ha soomo, hana ka soomo beenta iyo waxyaabaha xaaraamta ah, dariska ha dhibin, deganaan iyo maaragtay sakiina dushaada ha ahaato. wuxuu odhan jiray jaabir ibnu cabdillaah, maalinka aad sooman tahay iyo maalinka aad afuran tahay ha la kala garto oo marna yaysan isku mid noqonin ayuu odhan jiray. salafu haadihi lumma ramadaanka in badan bay sugi jireen, iyagoo u xiisaysan oo u hilowsan ayuu ramadaan ku imaan jiray. quluub saadiqa iyagoo ku sugaya iyo qalbi run sheegaya ayuu ramadaan ku imaan jiray. maxaa yeelay waxay ogaayeen ramadaanku inuu yahay maydaankii tartanka. wa fii dalika falyatanafasi lmutanaafisuun wasaaricuu ilaa mawfiratin min rabbikum. meeshii la yidhi khayrka u degdega inay tahay ayay ogaan jireen. markaasay waxay u kala tartami jireen qurbaadka iyo waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado. yaxya ibnu kathiir waxa uu leeyahay, salafu haadihi lumma waxay ku ducaysan jireen ducadan iyada ah: ilaahayow ramadaanka i gaadhsii, ilaahow ramadaanka anna isoo gaadhsii oo aniga ramadaanka isu kaayakeen, marka aad naga guddoomaysana naga aqbal. ducadaasay ku ducaysan jireen. walaalayaal, salafu haadihi lumma iyadoon ramadaan ahayn ayuu da'bigooda iyo dhaqankoodu wuxuu ahaa salaatuleylka. qumi leyla ilaa qaliila markay soo degtay sanad kaamil ah ayaa waxaa lagu nasaqi doonaa aayaddan kalea lagu nasaqi doonaahe oo ku jirta isla suuradda qumi leyla ilaa qaliila markay soo degtay sanad kaamil ayay saxaabadu qiyaamuleylka u istaagi jireen ilaa ay lugahoodii ay bararaan. kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun. habeenkii in yar bay ka seexan jireen, xilliga hiraabta ee la suxuurtana waxaa weeye ilaahay bay dembi dhaaf weydiisan jireen. maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen oo ay yaqiinsanaayeen inuu ilaahay usoo degi doono deganaan degid isaga u cunanta subxaanah ilaa samaa'i dunyaa. kadibna uu dhihi doonayaa wax weydiisanayo oon siiyaa. tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun. macnaheedu waxaa weeye iyadoo hurdadu u macaan tahay oo firaashka uu macaan yahay ayay ka kici jireen hurdada oo ay ilaahay agtiisa waxa jira ay doonan jireen. sanadka oo dhan marka sidaasuu ahaa. saciid ibnu musayib sayidu taabiciin naftiisa ayuu la hadlay, wuxuuna leeyahay, naf yahay istaag oo ilaahay hor istaag. ma'waa kulli shar oo dhan adigay kugu aasan tahay. in lagaa shaqshaqaad u baahan tahay sharta, in lagaa shaandheeyaad u baahan tahay. wallaahi la adacannaki tasxafiina zaxfa albaciir. wallaahi sida rabtigii inaad gurguurato xamaarato
ayaa ku tusi doonaa buu yidhi kadibna wuu ku dirqin jiray inay naftu ilaahay hor istaagto marka uu aroortii waaga u baryo iyada oo lugihiisii ay barareen u arko istaaggii uu istaagnaa daraaddii ayuu wuxuu odhan jiray bidaa umirtu walidaa khuliqtu saasaa la amray saasaana la ii abuuray man minaa yaa cibaadallah kan aan ogeyn ilaahay inuu abuuray cibaadadiisa man minaa yaa cibaadallah kan aanan la soconin inuu berri dhiman doono man minaa yaa cibaadallah midkan aan ogeyn inay dhallinyaronimadiisu tagi doonto uu gaboobi doono man minaa yaa cibaadallah inay dadkii ka horreeyey ay qubuuro galeen aw ay ilaahay xaggiisa ay aadeenkaan ogeyn waa kuma man minaa walaalayaal midka aan ogeyn in salaada iyo soomka iyo qiyaamka iyo ducada iyo waxbixinta darajaad sare lagu gaadho waxa weeye cid aan ogeyn ma leh laakiin camalkii baa naga dhiman walaalayaal fudayl ibnu ciyaad wuxuu odhan jiray raximahu llahu tacaala qofka haddaadan awoodin ismac yaa cabdallah wallaahi naftaydan daciifka inay hadalkaa maqasho waa waajib wuxuu odhan jiray haddaadan awoodin inaad habeenkii qiyaamuleyl la timaado maalintiina aad soonto mid hoogay baa tahay mid la hoojiyey baa tahay mid naxariista ilaahay laga dheereeyey baa tahay liannahu dadka qiyaamuleylka u istaagaya markay dadka oo hurda oo aan cidna arkaynin ilaahay dartii ay u istaagaan rabbi wuxuu ugu jawaabay falaa taclam nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun naf walba intay shaqaysatay leedahay naftu wuxuu ilaahay u qariyeyna garanay mayso abu yaziid wuxuu odhan jiray sufyaanu thawriy raximahu llahu tacaala marka uu habeenkii muddo dheer taagnaado waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo khudbadii waa nagu dheeraatay nusaac bay dhaaftay halkanay ka dhacday inaad dhahdaa laga yaabaa sufyaan siduu u taagan yahay ayay lugihiisu barari jireen kadibna way kabuubyoon jireen way qaadi kari waayi jireen inuu lugaha ay xamilaan buu awood waayi jiray dabadeedna intuu fadhiisto oo madaxa dhulka dhiga ayuu lugaha kor u taagi jiray si madaxii maaragtay dhiiggiisii uu dib ugu soo noqdo markaas salafu haadihi lumma sidaasay ahayd walaalayaal cibaadadoodu ay ahayd sidaas ayay ahayd qisadan aan kusoo khatimaya ninka la yidhaahdo mucammar waxa uu leeyahay nin la yidhaahdo sulaymaan itamiimiy ayaa dhankayga ku tukaday markaanu cishihii tukannay oo salaadii ka baxnay oo nin walba inuu gurigiisii aada ay ahayd ayuu salaad galay buu yidhi dabadeedna wuxuu akhriyey tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aayaddaasuu akhriyey buu yidhi markuu soo gaadhay falamaa ra'awhu zulfatan sii'at wujuuhu aladiina kafaruu qola xagga naarta loo soo kaxaynaya ilaahay markuu isagoo ka sheekaynaya markuus gaadhay ayuu wuxuu yidhi aayaddii buu ku celceliyey ilaa dadkii masjidka ku jiray oo dhan ay baxaan markaasi isaga marka mu'adinkii iyo sheekhii wuxuu ahaa masaajidka anna waan baxay buu yidhi dabadeedna anna waan baxo gurigeydii baan aaday maxaa dhacay markaan soo seexday oon soo cunteeyey oon soo howla bogtay oon u imid inaan salaadii u addimo fajarka ayaan imid buu yidhi sulaymaan u tamiimiyo oo meeshiisii taagan oo halkiisii taagan oo aan weli aayaddii aan dhaafin falamaa ra'awhu zulfatan sii'at wujuuhu aladiina kafaruu iyadoo isagoon aayaddii weli dhaafin baan imid buu yidhi salafu haadihi lumma cibaadada sidaasay u dhadhasan jireen maxaa yeelay waxay hayaan baa u caddaa saciid ibnu musayib oo hadda aan ka sheekaynaynay markay geerida ku timid wayna bannaan tahay siday ahlucilmi sheegeen qofka markuu is yidhaahdo hadda xilligan cidna istutus kaaga arki mayso inuu wixii khayr ahaa uu sheego in marka saa daraaddeed dadku a'immatulhudaa markay dhinteen baa tarjamada laga sameeyey saciid wuxuu leeyahay markay geeridii igu timid oo sakaraadkii igu yimid ayaan arkay gabadhaydii oo gabadha isagoo u dhalay inantiisii oo aad u ooyeysa ayaan arkay buu yidhi waxaan ku yidhi gabadhaydii ha ii ooyin aniga cilmigayga khasaaro ma aha fa wallaahi 40 sano oo xidhiir ah weligay inaanan addin maqlin khaarij almasjid anoo jooga anoo gurigayga jooga inay salaad ii soo gelin anoo diyaar ah oo soo labistay oo masjidka ku jira ayaan addinka maqli jiray waa 40 sano 4 maalmood ma aha 4 biloodna ma aha bisha ramadaanka oo keliyana ma aha
dhowr salaadood maaha oo aad firaaqo tahay oo weliba kuwa aad shaqada ku jirta aan ahayn 40 sano oo xidhiidha weeye هكذا فازوا سلاسي ليبان توضع هاي وحاكلوا لقوري يا سعيد بن مسيب إن أويري 30 سنة صد سنة أو حريقة ولي ننتو كلا يقلات كي سماء أنا أرى معايا لي صفقة هروكو تكتشري صفقة هوري و30 سنة صد سنة أو حريقة إمام أبي حنيفة إيا إمام سفيان بن ثوري إيا إمام شافعي إن أي قرآن كان من جرين ماني والبأيا سوء أرورتي أئمة الهدى هي صحابة رسولكم تضبطي 10 مر بالقرآن كان من جرين رمضان كمركو سوق قلبا مركو سوق قلنا صدح دي مارتي صدح دي مالمود بمر بين جرين marka walaalayaal soonkii salafu hadhihi al-umma sidaasu ahaa waxaad isbarbar dhigtaa marka soonkaada iyo soomkii salafka isbarbar dhig marka sheegashada aad sheeganaysi waxyaabaha ka calaacalayso iyo waxay salafu hadhihi al-umma ay sameyn jireen isbarbar dhig aynu walaalayaal dadaalno aynu isdaba qabanno aan niyada cusboonaysiino aynu jadwal samaysanno hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah كما أمركم ربكم رب العالمين فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة وبقية الآل والأصحاب وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم اجعلنا ممن سام رمضان وقام رمضان وأدرك ليلة القدر وفاز برضاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون